Filimku wuxuu ku bilaabanayaa Neha iyo laba afduubayaal ah oo jooga bannaanka iskuulka. Tuugadii ayaa dhaawacay Neha, waxaan aragnaa iyada oo isbitaal ku jirta. 2 bil kadib, waxaan Neha ku aragnaa mandir lagu magacaabo Gudurwaar. Baadiriga ayaa u imaaday, wuxuuna u sheegay inuu wax badan la socdo xaaladdeeda, ayna aad u niyad-jabsan tahay, wuxuuna ku dhiirrigeliyay inay sanadka caabudo. Wuxuu kaloo u sheegay inaysan ismurjinin, ayna wax badan sabarto, oo ay mar dhow dhibaatada ka bixi doonto. Waxaan aragnaa Kabtan Ranveer isagoo la dagaalamaya 3 ka mid ah argagixisada Kashmir. Waxa uu wajahayaa baaritaan ku saabsan dilka 3 argagixisada ah. Mar la weydiiyay sababta uu u dilay argagixisada, Ranveer ayaa sheegay in argagixisada ay isku dayeen inay gubaan calanka dalkooda, taasina ay tahay sababta uu u dilay. Waxaana ciqaabaya Colonel Ranji oo ku ciqaabay inuu dhammaystiro socod dheer oo ah 25 kiiloomitir. Ranveer markii uu dhammeeyay orodka, wuxuu ku soo noqday qolka. Saaxiibkiis ayaa u sheegay in telefoonkiisa uu soo dhacay muddo dheer. Wuxuu daaray fariin codeed, wuxuu maqlay codka saaxiibtiisa Neha. Waxay ka cudur daaratay inay la soo xiriirtay 4 sano kadib, waxayna ka codsatay inuu caawiyo. Ranveer si dhab yar ayuu hal isbuuc uga soo qaatay Colonel Ranjit, wuxuuna bilaabay safarkiisa go'a. Isagoo saaran gaariga ayuu soo xasuustay Neha iyo saaxiibteed oo dhibaya Ranveer. Waxay waceen moobilkiisa. Markuu Ranveer u yimid, aad ayuu u fiiriyay Neha, wuuna jeclaaday. Maalintii xigtay, Neha oo la hadlaysa aabaheed, Ranveer ayaa u soo dhowaaday, isagoo leh waan ku jeclahay, wuuna ka tagay. Laakiin aabaheed ayaa u sheegay inay iska ilaaliso. Ranveer oo basketball la ciyaaraya asxaabtiisa, Neha ayaa u timid, waxayna siisay nambarkeeda, iyadoo u sheegtay inay ka heshay sida uu shalay ula hadlay. Neha iyo Ranveer ayaa isku soo dhowaaday. Ranveer ayaa guur u soo bandhigtay, balse Neha waxba ma odhan. Waxay bilowday inay ka hadasho saaxiibkeeda hore iyo sida uu uga tagay, waxayna ka cabsanaysaa inuu asigana ka tago. Ranveer ayaa u sharxaya sida uu u jecel yahay iyada oo uu u ballan qaaday inuusan weligiis ka tagi doonin. Waxaan ku soo noqonay waqti xaadirkan. Ranveer ayaa maqaayad kula kulmay Neha. Ranveer ayaa la yaabay dabeecadda qalafsan ee Neha, wuxuuna dareemay cabsideeda. Wuxuu u sheegay inuusan weli guursan, uuna ka mid yahay ciidanka militariga. Neha ayaa u sheegtay inay dhashay hal gabar, muddo 2 bil ahna ay ka maqan tahay, waxayna ka barisay Ranveer inuu ka caawiyo helitaanka gabadheeda. Wuxuu u yimid Osman, wuxuuna ka kireystay gaari. Osman markuu ogaaday inuu Ranveer askari yahay, wuxuu isku dayay inuu la saaxiibo. Wuxuu la kulmay Neha oo u sheegtay inay weyse cid garab siisa. Wuxuu u ballan qaaday inuu caawin doono, waxayna u sheegtay xitaa booliiska inay ka diideen caawimaad. Waxay imaadeen saldhigga, waxay la kulmeen taliye Kuute oo raba inuu kiiska soo xiro. Ranveer ayaa isku dayay inuu akhriyo keeska, balse taliyaha ayaa ka dafa buugga. Kuute ayaa caayay Neha. Ranveer ayaa xanaaqay, wuxuuna dilay Kuute iyo ciidankii meesha joogay. Neha ayaa celisay, Ranveerna waa la xiray. Neha ayaa weli ku sugan saldhigga, halka Ranveer ay booliiska aad u garaacayaan. Ciidamadii garaacay ayaa ogaaday in Ranveer uu ka tirsan yahay ciidanka militariga. Waxaa imaaday taliyaha guud ee ciidanka Shirgil, wuxuuna askartii ku amray inay u keenaan Ranveer. Ranveer ayaa u sheegay inay dambi tahay booliis inuu militari xiro. Markuu dhageystay kadib, Shirgil ayaa yidhi, hadda ma tihid militari, hadda shacab ayaa tahay maadaama aad fasax soo qaadatay. Waxaa soo wacay Colonel Ranjit. Ranveer ayaa la hadlay, waxaana lagu amray in isla berrito uu ku soo noqdo xerada, lana ciqaabi doono. Ranveer ayaa oggolaaday, wuxuuna subaxii gaari la soo raacay Osman asigoo u socda xerada. Osman ayaa dareemay fikirka haysta Ranveer, wuxuuna u sheegay in mar kasta uu dagaal dhex mara qalbigiisa iyo maskaxdiisa uu raaco qalbigiisa. Ranveer ayaa gaari istaajiyay, wuxuuna soo xasuustay ballankii uu ka qaaday Neha. Wuxuu imaaday iskuulka ay dhigan jirtay Riya, balse maamulihii ma aysan siin warbixin uu ku qanco Ranveer. Markuu soo baxay, wuxuu arkay kaamira ku xiran guri ka soo horjeeda iskuulka. Wuxuu isku dayay inuu la hadlo milkiilaha guriga, balse waa la ceeriyay Ranveer. Ranveer ayaa u yimid Neha, waxayna ka raaligelisay wixii ka dhacay xabsiga. Wuu dejiyay, wuxuuna weydiiyay sawirka Riya, balse waxay u sheegtay inay wax sawir ah ka hayn gabadheeda. Wuu ka naxay arrinkan. Neha ayaa kor ka aragtay dumaashigeed Sunny, waxayna Ranveer ku amartay inuu isaga tago guriga. Ranveer ayaa fiiriyay Sunny, halkii uu ka bixi lahaana wuxuu dhageystay hadalkooda. Wuxuuna ogaaday in Sunny uu yahay daroogiiste. Markuu Sunny baxay, Ranveer ayaa guriga ku soo noqday, wuxuu Neha weydiiyay nambarka dumaashigeed. Wuu wacay, balse waa lagu jaray telefoonka. Ranveer ayaa la kulmay saaxiibkiis Suki, wuxuuna u waday arooskiisa. Ranveer ayaa soo xasuustay habeen uu Neha aabaheeda ku dilay aroos, balse Neha waxba kama aysan dhihin dharbaaxadaas. Maalintii xigtay, Neha ayaa imaatay guriga Ranveer, waxayna u sheegtay inay rabto inuu guursado. Ranveer aad ayuu u farxay, waa la soo wacay, waxayna imaatay isbitaalka. Aabaheed ayaa u sheegay in laga helay kansar. Neha ayaa go'aan ku gaartay inaysan guursan Ranveer maadaama uu aabaheed ogoleen. Waxaan ku soo noqon xafladdii, askari sarqaansan ayaa riday idhikaarkiisa, balse Ranveer ayaa jeebka gashtay. Wuxuu ku soo noqday guriga, wuxuuna idhikaarkii tusay waardiyihii. Marka la tusay muuqaalka Ranveer ayaa ogaaday in qayb laga jaray muuqaalka, wuxuuna muuqaalkii maalin ka hor ku arkay Sunny. Ranveer ayaa lacag siiyey waardiyihii si uu u soo helo muuqaalka maqan. Taliye cusub ayaa la keenay oo lagu magacaabo Loha, wuxuuna la kulmay Shirgil oo ah taliyaha guud ee ciidanka. Waxay ka wada hadleen sidii ay u nadiifin lahaayeen magaalada.
Looha waa nin aqli badan, wuxuuna Shirgil ugu hanjabay sir qaas u ahayd asiga, balse Shirgil ayaa xaaladda dejiyay. Ranveer ayaa ogaaday xiriirka ka dhexeeya Osmaan iyo tuugada Ruushka. Tuugadii ayaa isku dayay inay dilaan Ranveer, balse Ranveer ayaa garaacay nimankii. Wuxuu yimid xafiiska Osmaan, wuxuuna weydiiyey wuxuu ka ogyahay afduubitaanka Riya. Osmaan wax muusan u sheegin, wuxuuna ka celiyay tuugadii Ruushka oo rabtay inay disho Ranveer. Ranveer ayaa Rita ku soo daawacay joornaalka, waxaana soo wacay nin isku sheegay inuu yahay aabaheeda uu la kulmay. Ninkii ayaa Ranveer u sheegay inuu gabadhan isaga dhalay, inuu ugu luntay magaalada Mumbai. Ranveer ayaa ninkii dilay, ninkii ayaa tusay warqadda dhalashada. Isla markii Ranveer waxaa soo wacay Neha ninkeeda, wuxuuna ka codsaday inuu la kulmo. Markay kulmeen wuxuu u sheegay in Neha ay waalan tahay ayna xanuunsatay mar gaarigeeda lagu soo weeraray, wixii markaas ka dambeeyayna ay ku waalatay Rita. Sidoo kale wuxuu u sheegay inaysan weligiis wax carruur ah aysan u dhalin. Ranveer ayaa soo xasuustay dhaqamadii Neha, wuxuuna aaminay Shekhar. Waxaa soo wacay waardiyihii oo u sheegay inuu helay muuqaalkii maqnaa. Markuu yimid Ranveer wuxuu arkay Neha oo keligeed ah aysan la socon Rita. Isla markii wuxuu u soo orday guriga Neha, wuxuuna u sheegay inay waalantaa oo aysan wax carruur ah ay dhalin. Neha ayaa yaaban, waxayna ka codsatay inuu nabadgeliyo asiga. Isagoo bixira wuxuu arkay mastarad lagu cabiri jiray dhirirka Rita. Neha ayaa dabaq iska tuurtay. Markuu arkay meydka Neha aad ayuu u ooyay. Looha ayaa yimid guriga Neha, wuxuuna baaritaan ku bilaabay Shekhar. Shekhar ayaa yidhi iga tag oo soo qabtay ninkii xaaskayga dilay. Looha intuusan bixin wuxuu arkay kaamira, wuxuuna ciidanka weydiiyey in loo keeno muuqaalka. Waxaa loo keenay moobilka Neha, wuxuuna ka helay nambarka Ranveer. Kuuti ayaa u sheegay inay isla socdeen. Looha ayaa baxay si uu la kulmo Ranveer. Osmaan ayaa imaaday guriga Ranveer, wuxuuna ka raaligeliyey beentuu u sheegay. Ranveer ayaa xanaaqay. Osmaan ayaa u sheegay inuu Rita ku arkay guriga Sunny, balse uu Sunny lacag siiyey si uu u aamuso. Ranveer ayaa go'aansaday inuu u tago Sunny, balse wuxuu arkay Sunny rag u shaqeeya oo dilay nin ay Ranveer ku qaldeen. Wuxuu la raacay wiishka. Waxaa soo wacay Looha oo ku dhahay meeshaada joog, balse Ranveer ayaa hotel ka soo tagay. Waxay imaadeen baar uu jooga Sunny. Wuu qabtay, wuxuuna weydiiyey arrimaha Rita. Sunny ayaa fakaday. Ranveer ayaa dilay nimankii la socday Sunny, wuxuuna soo bursaday Sunny. Markuu qabtay, booliiska ayaa imaaday, xabsi ayayna geliyeen. Wuxuu u bootiyey Looha. Way isdagaaleen. Looha waa laga awood badiyey. Waxaa imaaday Shirgil. Ranveer ayaa Shirgil u sheegay inuu Sunny yahay dambiilaha, wuxuuna u sheegay in Osmaan uu markhaati u yahay. Shirgil ayaa wareystay Osmaan. Habeenkii Shirgil oo Sunny wareysanaya xaaladda xumaatay, madaxa ayuuna xabadda ugu dhuftay. Ranveer ayaa ku dulqeyliyey meydka Sunny maadaama uu dhintay asigoo aan u sheegin meesha ay joogto Rita. Ranveer ayaa imaaday guriga Shirgil. Shirgil ayaa u sheekeeyey sida ay u wada dhinteen familkiisa. Wuxuu Ranveer weydiiyey xiriirka ka dhexeeya asiga iyo Neha. Ranveer ayaa u sheegay qisadiisa oo dhammaystiran. Ranveer ayaa Shirgil ka codsaday inuu soo xiro Shekhar maadaama uu arrintan wax ka ogyahay. Ayaa ku jawaabay inuusan soo xiri karin caddayn la'aan. Tuugadii ayaa imaatay, waxayna dileen Osmaan. Ranveer ayaa imaaday, wuxuuna garaacay mooryaantii. Wuxuu u tegay Osmaan, kaasoo gacantiisa ku nafbaxay. Wuxuu moobilka tuugada ku arkay fariimaha Shirgil. Wuxuu garaacay uuna wareystay tuugii. Waxaa loo sheegay meesha uu ku yaallo qasriga Shirgil. Wuu soo baxay. Kuuti ayaa isku dayay inuu istaajiyo, balse wuu dilay. Tuugadii ayaa difaac gashay. Garaacay oo uu dilay dhammaan tuugadii joogtay. Wuxuu soo galay guriga. Markaas Colonel Ranjit ayaa imaaday keyntii, wuxuuna Looha u sheegay in Ranveer uu noloshiisa ku qaatay keynta, uuna u aqoon badan yahay dhammaantood aysan fara gashanin. Ranveer ayaa gudaha ku arkay ninkii iska dhigay aabbaha gabadha dhalay, wuu dilay. Waxaa gadaal ka soo muuqday Shirgil oo toogtay Ranveer, wuxuuna u sheekeeyey qaabka ugu faa'iidaysto tuugnimada asigoo ah ninka ugu sarreeya ciidanka. Wuxuu u sheegay in Rita ay ahayd dhil ganacsi ay isla galeen Shirgil iyo Sunny, maadaama uu Shekhar aad u necbay xaaskiisa Neha oo uuna rabay inuu ceebeeyo oo ugu tilmaamo waali. Wuxuuna dadka oo dhan ka codsaday inay Neha ku tilmaamaan naag waalan. Shirgil oo raba inuu dilo Ranveer ayaa waxaa gadaal ka toogtay Looha, wuxuuna ka duubay cod kuna yiri waa nadiifiyey magaalada. Ranveer ayaa garaacay meydka Shirgil. Wax yar kadib wuxuu kor ka arkay Rita. Looha ayaa wareystay Shekhar, waxaana ogaanay in Ranveer uu dhalay gabadha maadaama uu Shekhar yahay madhalees. Looha ayaa arrintii u sheegay Neha, wuxuu ogaaday sababta ay Neha uga codsatay inuu raadiyo gabadha. Ranveer ayaa la kulmay gabadhiisa ugu dambeyn. Daawad haddii aad ka hesho muuqaalka fadlan like saar, ku soo biir channelkeena oo subscribe dheh. Mahadsanid kulanti dambe oo xiiso leh.